بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤاشي صدنات ونور هنيد جواب تيدو waxay noqonaysaa in quraanka la isku xukumayo sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam waa farad waa shay waajib ah muslimiinta oo dhan waxa laga rabaa inay u xukun doontaan kitaabka Ilaahay iyo sunnada nabiga hadday diidaan oo ku caasiyaan waxay noqonayaan waxaynu kaga hadli doonaa su'aalaha dambe soo socda haddana waxaan galaynaa su'aalihii tobnaad afraad ee tobanka su'aalood ahaa waxayna u yeeleen su'aasha kow iyo soddonaad intee aayadood ayuu qur'aanka kariimka ka kooban yahay intee aayadood ayaa qur'aanka kariimka ka kooban yahay qur'aanka kariimka wuxuu ka kooban yahay 6236 kuwa oranayana waan arki jiray 6666 sax ma aha su'aasha 32aad waxaad sheegtaa nebiga reerkiisu ay wada rumeeyeen dhammaantood nebiga reerkiisu ay wada rumeeyeen markii cadaabka lagu soo dejin lahaa ay toobad keeneen oo ay wada rumeeyeen dhammaantood nebiga ay ummadiisu markii cadaabka uu ku soo dhawaaday ay ilaahay u toobad keeneen kadibna laga qaaday cadaabkii oo wada rumeeyey waxay ahaayeen Yunus qoladiisa nebi Yunus calayhi salaam su'aasha 33aad waxaa sheegtaa qur'aanka makiga la dhaho oo soo degay hijrada horteeda intee suuradood baa qur'aankaasu ka kooban yahay intee suuradood ayaa qur'aanka makiga oo soo degay hijrada intaan nebigu madiina u hijroon lagu soo dejiyey intee suuradood bay ahaayeen suwarka makiga la yiraahdo ama suurada maka ku soo degay ama hijrada horteeda soo degay waa 85 suuradood 85 suuradood 34 sheeg suuradaha madaniga la yiraahdo ama soo degay hijrada gadaasheeda nabiga lagu soo dejiyey tiradeeda sheeg waxaad sheegtaa tirada suuradaha madaniga loo yaqaano waa suwar almadaniya oo lagu soo dejiyey hijrada gadaasheeda nabigeena calayhi salaatu wasalaam suwarka madaniga ama madiina lagu soo dejiyey cadadkoodu waa 29 waxaad sheegtaa labada suuradood oo sahrawiyaan la yiraahdo sahrawiyaan ama zahrawaan waxaad sheegtaa labada suuradood oo quraanka kariimka ka mida oo loo yaqaan zahrawaan oo laga wado inay ifiyaan qalbiga mu'minka ama inay ku jiraan ilaahay magaciisa weyn labada suuradood waxaad sheegtaa labada suuradood oo zahrawaan loo yaqaano oo macnaheeda laga wado ama qalbiga mu'minka inay ifiyaan ama inuu ku jiro magaca ilaahay oo weyn ismullaahi al-acdam labada suuradood ee zahrawaan lagu magacaabo waa suuratul baqara iyo suuratu aali cimraan waana laba suuradood oo yoomal qiyaamaha qofka mu'minka u doodaya 36 waxaad sheegtaa intee suuradood oo quraanka ka mid ah ayaa ku bilowda alif laam miim saddexdaas xaraf oo xuruuf muqattaca la yiraahdo
intee suuradood oo quraanka kariimka ka mid ah ayaa ku bilowda alif laam miim? lix suuradood ayaa waxay ka bilaabmaan alif laam miim. 37 intee suuradood ayaa ka bilowda xaamiim? intee suuradood quraanka kariimka ka mid ah ayaa ka bilowda xaamiim? waxaa ka bilowda 7 suuradood oo quraanka ka mid ah ayaa ku bilowma xaamiim. 38 intee suuradood ayaa ka bilowma alxamdulillaah? intee suuradood ayaa ka bilowma alxamdulillaah? shan suuradood ayaa waxay ka bilaabmaan alxamdulilaahi oo quraanka ka mid ah. 5 suuradood ayaa ka bilowma alxamdulillaah. 39 waxaad sheegtaa labada suuradood oo loo yaqaano mucawadataan ama kuwa wax dhowra. waxaad sheegtaa labada suuradood oo loo yaqaan mucawadataan ama kuwa wax dhowra. labada suuradood oo loo yaqaan mucawadataan waxa weeye suuratul falaq iyo suuratul naas oo quraanka ugu dambeeya. masxafka markii la fiiriyo suuratul falaq iyo suuratul naas oo labadaas ayaa la yiraahdaa mucawadataan. su-aasha 40aad waxaad sheegtaa suuradda loo yaqaano caruusul qur'aan ama caruusadda qur'aanka. waxaad sheegtaa suuradda loo yaqaan caruusadda qur'aanka. taas jawaabteedana waxaan kaa rabaa inaad iigu soo jawaabtid tacliiqa ama kommentiga. jawaabteedana gadaal baan kaa siin doonaa xalaqada soo socota. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.